السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبينا qiimaha badan ku xidhan barteena YouTube-ka Cabdil Daqsi kale Facebook page-keena xogtaan midho waxaan maanta idin haynaa jacaylka King CK iyo sidoo kale Sumera iyo waqtiga uu dhacayo iyo xaqiiqada ah iyo waqtiga uu dhici doono oo aan soo ogaanay sidoo kale halka ka dhici doono oo magaalada Istanbul ee caasimadda Turkiga taasi oo ka dhici doono toddobaadka soo socda Sumera iyo King CK jacaylkeedu runtii way cadeysteen si weyn oo qiimo iyo qayr ay u cadeysteen ay sheegeen inuu jacaylkoodu yahay mid aanan kala labayn lahayn waqti dhawna dhacaya arooskoodu taasoo ay dadku ku tilmaan sheekh iyo gabadh sheekhada iyo sidoo kale wiil YouTuber ah fanaan asdahay ay iskula doontay amba calafku iskula doontay taasi si weyn baraha bulshada loogu falanqay haddaba saaxiibayaal su'aasha isweydiinta badan ayaa ah Sumera iyo King CK laba qof oo ma yihiin isku dhow amba laba qof oo macnaha reer wada dhaqan kara dabcan haa way wada dhaqan karaan wayna wada noolaan karaan waayo noloshu uma baahno inaad tahay YouTuber iyo inaad tahay qof iska caadi ah iyo inaad tahay sheekhad iyo inaad tahay fanaan ee waxa u baahan tahay kaliya in labada qof isfahmi karaan reerna wada dhaqan karaan ay noo garanayaan halka wada socdaan labadooduba taasi ay u baahan tahay kaliya noloshu ee uma baahna sheekh iyo kala weynaan iyo qofku inuu midiya sheekh iyo inuu yahay midna in sidoo kale YouTuber amba fanaan taas uma baahno oo ma aha mid xaqiiqo ah saaxiibayal haddaba arrintani waa mid xaqiiqo ah oo ay hadda si weyn labaduba u shaaca qaadeen iyaga oo bartay YouTube-ka ee King CK ku jira ayay labaduba sheegeen inay guurkoodu yahay mid aan laga labaynin ama mid aan warwarka qabin oo ay dadka Soomaaliyeed la wadaageen inuu guurkoodu dhici doono oo ka dhici doonto sidoo kale waxay iskaar u sheegtay Sumera oo ay iyadu shaacisay inuu guurkoodu dhici doono kana dhici doono mid ka mid ah wadamada ugu quruxda badan qaaradda Yurub dhinaca kalena kaga jirta Aasiya waa dalka Turkiga kulli waad garanaysaa dalkaas aduguba marka aan ku raado waa wadan laba qaaradood ka kooban waa Turkiga oo qaybna ah Aasiya qaybna ah Yurub laakiin ah qoylaha ugu dalxiiska badan ee dadka Soomaalida sanadada u dambeysay aadka u joogeen amba aadka u dalxiis tagayeen waa Istanbul waa caasimadda ganacsiga ee Turkiga amba caasimadii hore ee Turkiga waana magaalo aad dadku u yaqaanaan oo ay Sumera iyo King CK arooskooduna yahay mid si weyn u kala kici kara dad badan oo Soomaaliyeed ka soo qayb gal kara haddaba saaxiib adigu ma ka qayb galaysaa arooska King CK iyo Sumera seebase u aragtaa aragtidaadu waa noo muhiim ee waxaan ka codsanaynaa inaad la galo wadaagto commentiga qaybta hoose ee commentiga ayaad nagula wadaagi doontaa waxaan leenahay noqda reerkii lagu nasta ee lagu nigaado sidoo kale waxa kale jira barnaamij kale oo xagga dambe ku soo darnay oo Aisha Aziz ay ka dhawaajisay in iyadu jeclayd King CK sidoo kalena uu ka doortay Sumera oo jacaylka uga tagay taasi oo ay si weyn uga xumaatay amba ay si weyn afka u furatay Aisha Aziz andhaday gabadha iyaduna baraha bulshada si weyn u isticmaasha taasi oo iyaduna video kale oo ka hadlayna aan soo gelinay YouTube-ka isagana waa inaad daawada insha Allah oo si fiican uga bogta waa video kale oo qiimo badan leh saaxiibayaal haddaba saaxiibada qiimaha badan ee bartan ku xidhanow amba barteena Cabdil Daqsi ku xidhanow waxaan gaarnay 10,000 oo subscribe waxaan idin leenahay 100,000 gaarsiiya oo star ku dhaha waxaad ilaahay idin sidibay wax kale ma ahna waa fartiina ayaan u baahanaa inaad saa ku tiraadaan meesha cadsaanka cadeysaan una share gareysa saaxiibadina kale ee Facebook soo kale YouTube-keena iyo Facebook-keena nada wuxuu gaaray 20,000 okay waxaan u baahanaa inaan si dhaqso u gaarno 100,000 ee taasi oo ah mid aan himilada iyo horumarka ee gaarsiin qaybta inaad idin kalena gaarsiisaan ayaan aad idin ka rajeynaa saaxiibadina qiimaha badan waxaan idin leenahay maalinta idin wacnaato farxad iyo naxariis iyo nabadgelyo ku noolaada una duceeyo lamaanayaasha aan halkan ku soo bandhigno had iyo jeer kuwa iyaguna sida in qalbi jabka uga hadlayaan aba barnaamijka qalbi jabka ah ku dhaxan ka hadlaynana waxaan idinka codsanaynaa inaad duceysaan oo waqtiga waxaan dad muslim 100% Soomaaliyeed dadka nahay waxaan idinka codsanaynaa inaad dadka qalbigooda jabeena iyagana u duceysaan ilaahayna hasiyo kuwa iyagana boos u buuxiya soo kale kulamaanayaasha salmadina ilaahay ka dhigo kuwii reerkii lagu nastay lagu nagaado King CK iyo Sumera hambalyo ayaan leenahay